iyadoo aan ognahay in maalmihii ugu dambeeyay khilaaf uu ka dhex abuurmay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble. Madaxweyne Farmaajo ayaa soo saaray waraaq uu shaqada kaga joojinayo ra'iisul wasaaraha, balse Roble ayaa taasi ku gacan sayray isla markaasina dalbaday ciidamada lagu magacaabo badbaado qaran kuwaasoo fariisimo ka samaystay isgoyska dabka ee aan sidaas uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ayaa isaguna dhankiisa wada goobaabinayo dhalinyarada dalka si ay u difaacdaan qarannimadooda. waxay yiraahdeen waxaan uga adkaanay imaqla si fiican imaqla waxaan uga adkaanay yiraahdeen waxaan uga adkaanay dhalinyaradeenii baa kacday yiraahdeen dhalinyaradii aan abaabulnay dhalinyaradii wax alla wixii isko dhiganay qalinka waa dhigeen wax alla wixii shaqeynayay shaqadii waa ka tageen wax alla wixii ganacsadaha lacagii kulli waa dhaafeen waxay u baxeen kulligood inay dalkaas ka difaacaan sideedaas cadow iyo afartaas jabhadood oo dalka rabay inay burburiyaan intaasna waxaa dheeraad ku ahaa waxay qabeen cunaqabateen hub siyaasadeed maxaan ku raahdaa ganacsi wax walbay qabeen waa isku tashadeen dhalinyaradoodan badbaadisay aaway yiraahdeen dhalinyaradiinni meeye diyaar muu tihiin inaad dalkiina difaacdaan diyaar muu tihiin dhimataan diyaar muu tihiin inaad dhaqaale ku bixisaan ugu dambeyn dhalinyaro waxaa noo balana dalkan inaan xoreyno waxaa noo balana inaad dadkiina xoreysaan waxaa noo balana inaad diintiina xoreysaan oo sharaftaan taasna waxaad ku gaaraysaan maqla taasna waxaa noo balana oo aan ku gaaraynaa qof alla qofkii ardaya waa inuu qalin ka dhigo waa inuu u soo istaago difaaca dalka marka aad dalkaaga difaacato marka dalkaaga xoreysato marka dalkaaga nabad noqdo markaas weeye waxbarashada waxay ku taaliya shaqo dhalinyarada shaqaysa waxaa noo balana idinkana dalkiina xoreysaan soo maaha xorriyadda dalka soo kow maaha soo muqaddas maaha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.